السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا لا يلسود وهذا جماعة وناكسن ما أنتم حربا هالكن إن فكرة جناعسي أنا إذا كسو بندقو قلب كادو بهنا الله هيدين هذا لعل قلب كان يدو بهانتين سيدو كلا إن تلوين كلا وفكرة الله حديدة أنا إذا كسو قد بيو يقاب كسو جينت لبضبا إن شاء الله فكرة ده محقق قادن كرا قبلها يويلش لبضبا قيب أي كقبان كران فكرة جناعسي طبعا انتينا guda gelin waxay qaadataa muddo badan inaan internetka ka soo baaro qalabka macluumaadka waxyaalo badan oo faa'iido idinku ah aan muuqaalka kanaalka idinku soo gudbiyo fadlan in yar isku day inaad like saartid si uu dad badan u sii gaaro muuqaalkan aad sidoo kale waxyaalo badan oo dadka faa'iido ku biiriya ayaan kaga hadalnaa hadaad nagu soo biirin subscribe tana saar marka intaa ku walaalayaal ka nimaadno fikradda ay maanta ka hadlayno waxa weeye waa food delivery business ama online هذا عالم كي تكنولوجيا أيو جوريا وحكستنا أونلاين كيا لو جد البنية طبعا وحفلا يا قف كستو إذا كان بدأ ما تهوى أديك سدي موبايل بقى ما كدل بدي أما حرق شاتر أيو كدل بدي أما وحيالك لدون أي أونلاين كيب سدي مجالك للو كاني مجالوين كواوين ولا لا طبعا لبدكم يلا بعتن كي سفر عن لندن كجب حي وانهرجيسكو أدي لبا أسبوع عن سنة كان كرنتيل كشري ما دام أي حالة كورونا فيروس كشرتي أيان لبا أسبوع كرنتيلي مركها labada isbuuc marar badan waxay igu soo dhacday in aan maadaama aan maartay bixi karin oo kale in aan dalbado cunto online ah shirkadka la dhaho Daweeye Delivery kaliya ayaa markaa intaan aanu kale xog ahaan internetka ama ka arkay ama technology-gan ka arkay delivery-ga sameeynayay oo xagga cuntooyinka badina waxay ka soo qaadayeen meheradaha high end ama si qaaliga ah ay ka soo qaadayeen cuntooyinkaas iyagoo $15 $20 $18 marka lagu daro delivery-ga oo qiimahoodu gaarayay sida pizzaha iyo beegarada iyo chipsta iyo waxyaalaha kala duwan marka afar ganacsi oo marka Hargeysa ku soo arkay ayaan maartay halkaas ayaan ku reebayaa sare adaawan kartaan muuqaalka fikradda ugu dambeysay waxay ahayd in qofka uu sameeyo jiko ganacsiyeed ama commercial kitchen waxa loo yaqaano jiko lagu diyaariyo cuntooyinka delivery-ga oo qalab usamaysan 24 saac yani la isu kala bedeli karo cunto lagu diyaarin karo jikadaas iyo qalabkeeda ayaan walaalayaal insha Allah sharaxaynaa in muuqaalkan ay ku faahfaahin doonaa qalabada aad u baahan tahay sidoo kale qofkii haystaba waxa laga yaabaa dad badan inay haystaan hadii aad jikadaada gurigaaga kirama bixinaysid wax kharash badan kaaga baxi maayo waxyaalo badan u sameynaysid hadii aad waxyaalaha ku wanaagsan tahay ama ha noqoto sameynta keegaga ama ha noqoto diyaarinta cuntooyinka xafladaha sida sambuusyada iyo macmacaanada iyo waxyaalaha kala duwan ama ha noqoto cuntooyinka kale ee fudud ee loo yaqaano fast food-ka sida beegarada chipska pizza inta aad si heer sare u diyaarisid ayaad waxaad hadda shirkadaha waaweyn aad la tartami kartaa qiimo fiican oo macquul ah oo ma artay aan maalin taajir ahayn Soomaalidu wax kasta qaali bay ka dhigaan iyaga wax yar ku sameyn kara shaygan $3 ku sameyn kara $5 siin kara ayaa waxa ka saaranaya $5 oo kale $8 ama $10 ayaa wixii la gadaya waa waxyaalaha ganacsiyo badan ay u xidhmaan marka jikadaadii aad iska jooga cuntooyinkan waad diyaarin kartaa waxaad u baahan tahay Instagram ama Facebook page oo kale aad ku soo bandhigtid dalabkaaga ama menu-ga aad qofka u haysid dabcan hadaad leedahay qaabkii loogu geyn lahaa dadka cuntadaas oo kulul oo tayo leh oo macaan oo diyaarsan qalabkii aad u baahnayd iyo qaabka delivery-ga u sameyn lahayd qaybta dambe muuqaalka ayaan ku sharaxaynaa hadaba walaalayaal hadeen u nimaadno marka koowaad waxaan u baahanahay Soomaa hadeen jiko qofku haysan commercial kitchen qalabkee loo baahan yahay qalabyada muhiimka ee walaalayaal aad u baahan tihiin ayaan insha Allah halkan sawiradooda idin soo saaraya iyo maxay ahayday magacyadoodana insha Allah halkan idin ka sheegaya dabcan jikadan waxyaalaha aad u baahan tahay walaalayaal waxa kamid ah hadeen bilowno qalab bir ka samaysan qalabka birta ma jabo cayayaanku ma galo randiisan ayuu leeyahay muddo dheer ayaad isticmaali kartaa qalabkaas walaalayaal waxa kamid ah aad diyaarinaysid equipment-ka hadeen ka soo qaadno marka koowaad ee cuntada lagu jarjarayo kale stainless steel table waxa loo yaqaano ama miis bireed bir ka samaysan jikooyinka caalamka oo dhan ayaa isticmaala waa miiska qudaarta iyo waxan iyo lagu jarjarayo wadamadan caalamka waa lagu gadaa qalabkan qiimayaashoodana dabcan waan arkay laakiin sidoo kale meherado waaweyn oo badan oo ayaa jira sida cookerta oo kale cookerta ama shoolada ama tan cuntada lagu karinayo ee commercial cookerka loo yaqaano yani cookerada ganacsiga ama shoolada ganacsiga waan ku arkay Hargeysa waa lagu gadaa dabcan Muqdishona waa lagu gadaa magaalooyinka waaweynna waa lagu gadaa waxyaalaha ku fiican tahay inaad u iibsatid waxay weeye cuntadii bay si dhaqso ah u bislaynaysaa dabka kulka ka soo baxaya ayaa aad iyo aad u sareeya
sidoo kale oven weyn gudaha way ku leedahay oo biisayaasha aad ku diyaarin kartid marka qalabkan maxaan u leenahay isticmaala qalab ganacsiyeedka khibradda aan anigu markaan meherad cunto lahaa aan ka soo arkay waxa kamid ahayd haddii istiraadid qalab guri loogu talagalay soo iibso maalin kasta ku shaqee intaana bishu dhammaan ayuu qalabkii ka xumaanaya ama ka jabaya ama sicilad ku imaanaya qalabkan marka walaalayaal u baahan tihiin oo kale waxa kamid ah waxaan loo yaqaano dry shelf storage cuntooyinka ma aragtay qalalan يعني خانad aad ku kaydisid si aanu jiirku u galin si aan hawada u galin sidan maartay xawaashkii tayadii dhadhankii iyo wixii ayna uga bixin cayayaankan gudahooda u galin waxyaalaha kamid u baahan tahay waxa kamid ah khaanado dry shelves loo yaqaano oo bir ah ayaad u baahan tahay marka commercial kitchen laga hadlayo waxyaalaha u baahan tahay walaalayaal waxa kamid ah deep fryer waxa loo yaqaano ama se bahashan chipsta lagu shiilo oo iyadana ma aragtay qaab koronto ah ku shaqeysa oo chipstana ku diyaarinaysa qalabka loo isticmaalayo kamid tahay marka cuntooyinka fudud ee fast foodka la sameeyo ama se beegarada ama waxyaalo badan gudaheeda lagu shiilayo deep fryer waa qalabka ay kamid tahay qalabkaas walaalayaal waxa kamid ah double sink waxa loo yaqaano oo ah qaybta weelka lagu dhaqo oo isla markiiba nadaafada ma aragtay oo steel isaguna ah oo bir ka samaysan $300 ayaa wadanka Ingiriiska kale laga sameeyaa waa meel weelkii midna waa lagu garayaa midna biyihii baa lagu furayaa oo lagu dhaqayaa isla markiiba sida ayaad ugu nadiifinaysaa double sink ayaa la dhahaa waxyaalaha walaal u baahan tahay waxa kamid ah dough mixer ama se yani mashiinkan haddii aad sameynaysid keeg oo kale ama haddii aad sameynaysid rooti oo kale ama haddii aad yani waxyaalaha u baahan baking ka sameynaysid oo kale tamburka qasta ee mixerka ayaad u baahan tahay sidoo kale iyadana ilaa $600 ilaa $500 ilaa $300 qiimo kala duwan ayaa wadankan Ingiriiska laga helaa waxyaalaha u baahan tahay walaalayaal waxa kamid ah chest freezer waxa loo yaqaano ama se yani talaagad qabowjiye ah oo ku kaydisa cuntooyinka sida beegarada oo kale hilibka oo kale cuntooyinka barafka u baahan oo kale oo isla markiiba hadhowta marka laga soo saaro la diyaariyo waxaad soo iibsan kartaa beegar iska diyaarsan supermarketyada ka soo iibsan kartaa oo chicken burger ama beef burger hadaad sameynaysid oo talaagada barafka kugu jira hadhowtan isla markiiba aad shiilaysid oo beegarkiiyo diyaarsan oo fresh ah aad markaa diibaysid oo kaxaynaysid waxyaalaha marka qalabka walaalayaal aad u baahan tahay waxa kamid ah food delivery bag-gana waxa weeye saas sawirka shaashada ka aragtaan waa boorsooyin delivery-ga lagu qaado oo qofka macmiilka loo geeyo oo kulkii iyo tayadii iyo ama qabowgii ama cuntada xaaladda markaa ku sugnayd ilaalinaysa oo temperature control leh inagu kuleelisay dabcan naqaanay ka Soomaali ahaan sidoo kale waxay leedahay waa boorso yani kuleelisa ah oo cuntadii waxba ka bedelayn cuntadii fresh oo kulul qofkiisa markiiba lagu geyn karo marka delivery-ga uu sameynayso qofku soo dalbado dabcan waxa la siiyaa teeda wanaagsan ilaa waxay ka bilaabataa $25 ilaa $60 ilaa $100 ay gaadhaa hadba si uu kala weyn yihiin oo si kala tayo fiican yihiin oo kale wadanka Ingiriiska waa lagu gadaa marka walaalayaal qalabka marka ay haysano oo sayn soo sheegnay qalabka inta soo xusnay ay haysano waxyaalaha ay sameyn karno waxa kamid ah waxaan u baahanahay branding-kii qodobka ku xiga in aan markaad bilowdid magacii aad online-ka uga ganacsan lahayd oo kale magac wanaagsan u door meheradaada online-ka food delivery-ga laga soo dalbanayo Google ka diiwaan gali cuntadaada waxa ka diiwaan gelisaa sidoo kale Facebook ka diiwaan gali qaabku meel kasta online qofku kaga heli karo delivery-gaaga iyo cuntooyinka aad iibisid samee marka inta sameeysid waxa sameeysaa Instagram page u samee oo hadaa doontid waxaad maalin hire garaysaa ama soo kiraysataa sawir qaade yani xirfadle wanaagsan oo sawir qaada ah oo cuntooyinkan qaab wanaagsan sawirkaaga qaada oo menu list ku sameeyay qiimahoodii ku dul qora si hadhowto qofku markaad xayeysiiska sameeysid cuntada lagaga soo dalbado sidoo kale waxa sameynaysaa Facebook page ayaa sameynaysaa dad badan ay like saaran oo macaamiishaada ah oo taagid garaysid magaalada waxa ku nool 100,000 200,000 isku day 5,000 inay macaamiil joogto ah ku noqoto cuntadan ay ka soo dalban karto marka qaabka markaad sameeysid oo branding-ka ah oo dadka ku tiigsanaysid qaabka ugu dambeeysa waa delivery-ga hadii yani nin dhalinyaro firfircoon xaafada joogo mooto ayaa loo iibin karaa mootadaas ayuu meel kasta ku geyn karaa wax saacad ka yar
ama magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin shirkado badan oo mootooyin badan haysta oo deliveryga ku samayn kara oo $1 ka qaadanaya ayay leeyihiin shirkadahaas iyo heshiis la geli kartaa marka cuntada laga soo dalbado waad wacaysaa inanka macmiilka uu ku imaanaya cuntada uu ka qaadaya sida Ingiriiska iyo caalamka meelo badan ka jira mootadii ayuu ku qaadaya isla markiiba delivery ayuu sameynaya marka fikradan walaalayaal food delivery business waa fikrad aad iyo aad u wanaagsan online ka ah fursad ay ka jirta إن شاء الله مجالوين بدون واوين عاصمة ذا يكسر عن لايت هذه قيمة شبان ونكسن قف كوسا مايو شكل هذه كرا كوما عن عنتدن كوديار سي خرج بدنا يا كوبا غانا يا عنتدن هذا السمين كربا مركا إن شاء الله فكرة داسن ولا إليمنت ونكسن بدنا وين صورة فضل نسكت المقال كنا الحلقة في الأول أكتد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته